ciidamada hay'adda nabad sugidda ee Suudaanka qaranka ee Soomaaliya ayaa gacanta ku dhigay shabakada isku xiran oo ka tirsan dagaalamayaasha ururka Al-Shabaab. Qoraal ka soo baxay hay'adda nabad sugidda ayaa lagu yiri ciidanka hay'adda nabad sugidda ee Suudaanka qaranka ee Soomaaliya NISA ayaa gacanta ku dhigay shabakada argagixiso oo isku xiran kana kooban ilaa 5 xubnood kuwaas oo qorsheynayay in si qarsoodi ay ku soo galaan gudaha magaalada Muqdisho si ay uga fuliyaan falal lidka amniga iyo sidoo kale xasiloonida caasimadda. Sirdoonka qaranka oo si dhow ula socday dhaqaaqyada shabakadan iyo sidoo kale dhagaraha ay maleegayeen ayaa waxa ay sidoo kale howlgalkan ay ku soo qabteen noocyo kala duwan oo qaraxyo ah, hub iyo sidoo kale gaadiid kuwaas oo doonayeen inay ku dhibaateeyaan shacabka Soomaaliyeed ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay hay'adda NISA. Sidoo kale qoraalka waxa lagu xusay in shabakadan ka tirsan dagaalamayaasha ururka Al-Shabaab loo gudbi doono hay'adaha ku shaqada leh ee dhinaca cadaaladda si loo marsiiyo waxa ay xaq u leeyihiin. waxaan u mahadcelinayaa muwaadiniinta Soomaaliyeed oo wada shaqaynta joogtada la leh ciidamada hay'adda nabad sugidda iyo sidoo kale taageerada ay la garab taagan yihiin ciidamada amniga oo mar walba u taagan difaaca dalka ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay hay'adda NISA. sidoo kale hay'adda NISA ayaa ugu baaqday dhammaan muwaadiniinta Soomaaliyeed inay la soo wadaagaan cid kasta oo arkaan in ay lid ku tahay amniga isla markaana looga shakiyo inay ka tirsan dagaalamayaasha ururka Al-Shabaab. maan markii ugu horeysay hay'adda NISA ay sidaan kale gacanta ugu dhigto shabakada isku xiran kuwaas oo ka tirsan dagaalamayaasha ururka Al-Shabaab oo doonaya markaas inay si dhuumalaysi ay ku soo galaan gudaha magaalada Muqdisho.